السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تقيمها هي شرفت مدنات بانيني سلاني وقت وعني نور الفيعان بانيني رجينا إناكو سوى دوادا كنال كينا عافيماتك إضريالك عافيماتك يكليب كان وينو كويغينا ما تفايدو هيربالي أما دير لغا السمي ورنتي واحترادو بلارن iyo faa'iido aad u weyn u xambaarsan dadka la dhiban ama la cadilan xanuunka leeyahay diabetiska iyo macaanka ama sonkorowga Soomaali ahaan aynu naqaan xanuunkaas oo baabi'iyay dad badan oo bulshadeena ka tirsan la dagaalamay awoodooda oo daciifiyay isla markaas ay tamar iyo tayo iyo awood ay u waayeen xataa inay ku gaaraan suuliga dadkaasi waxay runtii la dabardaran yihiin ama xanuunkan lagu yaqaanaaba qofka marka uu ku dhaco inuu awoodda ka lumiyo inuu ahaado qof markaas awoodiisu ay daciifto oo uu baabi'iyo qof jirkiisu rifmo oo markaa uu tabcaamo isla markaa inuu salisyada jirka ee difaaca inoo qaabilsan inuu aad ula dagaalamo haddaba marka koowaad waxa aynu ku talinaynaa qofku marka uu isku dareemo xanuunka macaanka ee uu arka calaamadihiisa iyo astaamihiisa ama lagu soo sheego oo dhakhtar proof gareeyo inuu la xiriiro dhakhaatiirta si degdeg ah iskaga daweeyo isla markaana xaaladda ugu dhaqsaha badan uu bilaabo dawooyinka regulating sameeya ee ku sameeya inay maintain gareeyaan caafimaadkiisa haddii laga yimaado dhinacyada kale kaliibkeenan ama kanaalkeenu waxa uu ka fiiriyaa qofku waxa isagoo guriga jooga caawin kara ee taageeri kara ee taakule uu ka heli karo salaajigeed waxaynu kaliibkan ku soo qaadanaynaa maanta oo aynu kaga hadlaynaa dadka xanuunka macaanka la dhiban iyo qofka runtii arinta ama xanuunka ama jirada ku sifoobay inuu dariiqadan iyo wadada maro dad badan ayaa ku hodmay oo tijaabiyay kadibna la arkay si scientifically inay runtii saameyn weyn u leedahay dhakhaatiirta herbalistiska la yiraahdo ee ku takhasusay dhiraynta daawada dhirta iyo kabaaraandega dhirta iyo runtii ay dadka ay ku cilaajaan dhirtu waa kuwa kala duwan kuwa si scientific ay u barteen oo waa cilmi la barto oo jaamacada looga baxo qaarna waa qof inta badan qof aan aqoon u lahayn oo laga yaabo dhirtii inuu wax ku cilaajinayo dabcan labaduba faa'iido ayay leeyihiin ka kale isagu aan baranin mararka qaar waxa laga yaabaa inuu qaladaad galo oo runtii arrinta waa ka digayna haddaad isticmaalayso arrin dhira inaad aad uga taxadarto oo cid aqoonteeda leh ay ku siiso waa mid markasta bulshadeena aynu xasuusinayno arrintan waa arrin dhinacyo badan aynu ka eegnay dadyow fara badan oo qoomiyadaha dunida ayaa runtii tijaabiyey waxa ay soo saareen oo runtii ay nagu dhiirigelinayaan qofka la dhiban xanuunka macaanka haddii uu kariyo biyo aad u kulayliyo oo biyuhu isla barogaan oo wax loo yaqaano boiling water uu sameeyo biyuhu inay aad isku karaan isla markaa uu soo qaato caleenta geeska leeyahay maangaha ama cambaha caleentiisa uu kariyo kadib marka caleenta iyo biyuhu ay isla garaan inuu dhulka dhigo oo uu shaandheeyo oo biyihii nadiifta ahaa uu cabo inay u samayn doonto inay sonkorta hoos u dhigto awoodii qofka inay qabato xanuunkii inay bartaa ku joojisay inuu sii faafo oo sii ballaadho ayay markaa xooga saartaa arrintaas bulshadeenu inay dhug weyn u yeelato waa muhiim haddii aad dareento inay markaa wax dhibaato ah ay qofka uga imanayaan biyuhu waa inay qabow markaad cabayso way qaboobayaan marka koowaad ayaa si fiican u karinaysaa kadibna caleenta cuni maysida waad ka saaraysaa waad kala shaandhaynaysaa biyo nadiif ah oo kaliya ay ku jiraan deecaanka caleenta laga kariyay oo aan wax dhibaato ah oo kale aan lahayn oo xataa saxar yar aan ku jirin baad cabaysaa taxadarkeeda ka yeelo biyaha isticmaalaysaa waa inay aad safe u yihiin markaad shaandhaynaysana waa inaad aad iskaga shaandhaysaa arrintaa ina dhug weyn ay bulshadu u yeelato qofku hadduu intaa isticmaalo si scientifically oo runtii uu muddo joogteeyo xanuunku inuu hoos u dhacayo isla markaa dawada booskeeda inay u galayso ayay dabcan researchada iyo dhakhaatiirta qaybta herbalistisku ay noo soo bandhigeen oo markaa ay nala wadaagayaan arrintani
waa arrin runtii qof kastaaba aan filayo inuu waddanka uu joogo ama geyiga Soomaalida uu ka heli karo arrintaas inaynu dhug weyn u yeelano ayaa bulshadeena aynu kula talinaynaa fadlan la sii wadaaga oo u sii sheer gareeya bulshada aynu jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan idinkana waqti wacan iyo nolol wanaagsan baanu mar labaad idin rajaynaynaa intaasaynu kusoo ururinaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.